ninku u horeysay waxa la sheegaa gabadh nool duuga waxa ugu horeeya la yiraahdaa nin reer Bani Tamiim ah oo la oran jiray Caasim ibn Qays la oran jiray ama Qays ibn Caasim la oran jiray qabla al-islaam waabay qabiil kale dagaalameen markaas intii laga adkaaday baa gabadhu asagu dhalay yaa dadka la qafaashay la tagay dagaal baa socday muddo badan socday waagi dambe la heshiiyo la dhaxgal labada qoys gabadhiis marka reerkii waagi dhacay baa nin baa waxa iska dhigtay markii la heshiiyay iyo wixii gabadheedii hal ay soo celiyo oo magti la kala qaato rag la xisaabsaday gabadheedii heblahay la soo celiyo ninka qabayga wuxuu yiri wataasi haday ku raacdo anu kaama haysta buur laakiin haday tira odaygii waa iskala joogahayaa ma qasbi kartid buur odaygii Qays ibn Caasim at-Tamiimi wuxuu aabbo inakee ma jiri ku raaci maayo halkaygan baan iska joogahayaa odaygii midhaa ka heshay kadib uu soo noqday dhaar wuxuu ku maray gabadh walba u dhalatay inuu inta yartayba uu isdhaafiyo inta ceebtaas gabadh walaa ka dooratay nin ajnabi ah oo waag horba qafaashay oo xoog ku qaato qaniimaystay ceebta intay carab maq dib dambe tan ay hadda ay aafaysato dambe aafin meesha asaga sunnada carab u jideeyay kadibna way kaga daydeen laba qaab bayna gabdhaha u nool dugu jireen haweenadu markay xaamilo sidkeedu dhamaado oo fooshu qabato ay soo dhowdahay bay god dheer qodi jireen guriga agtiisa ama meel la yaqaan god dheer ka qodahayaan haweenadu nabarku ma ku bilaa waxa la godka u soo dhawow godka agtiisa tag godkii bay ku agmulaysa ilmaha dhasha la firmo wiilba alla soo qaada ma gabadhba hore lagu sii riixaya halkaas ay ku umulay isbitaalkeedu waa isbitaalkee god la sii qoday way halkaas ay ku umulaysa haduu lab noqdana waa la soo xambaaran haduu dhagdi noqdana waa lagu sii ridi jiray dariiqada way yaqaaneen dariiqa kale oo sudaasiga yaqaano gabadha waa la korin waa la dayn markay 6 sano gaadho 6 sano markay gaadho ayaa loo qabayn loo soo labisi dharka ugu quruxsan baa loo xidhi bilada wixii laga iyadoo quruxsan baa aabaheed soo kaxayn aabo ina keen godkan aan qoray fiiri bal soo ogaa aabo uu dheer yahay hore lagu tuuri jiray markay qoraansato aabbaad buu dheer yahay daraabay yaa dhabarka laga riixi jiray labada dariiqada gabdhaha u nool duugu jireen dhaqan xun buu ahaa laba sabab baan ku kalifi jiray imma khawfu caarin wa imma khawfu caylatin ceeb iyo magaxuma ka cararkii sida Qays ibn Caasim at-Tamiimi uu bilaabay ama faqri iyo gaajo ka carar labada sabab bay sameyn jireen sababka ku bilaabatay ceeb ka carar bay ahayd waagi dambe waxa soo gashay inay ceeb ka carar ay u xabaalaan وواد البنات قبله النول دوغن إلهي وإذن كحرمي وفير سمي شاهد علوم إليه الفرع والأصل والنبي والصدبات الفرع والأصل هو يو أصلا إن لقوا حد بالنبي وادي حق إذا ما لك كدعه فرعي هو يكفر عمل قبلها النبي وإلى لي وحوري لما نولدوه كرو لأنه هو يو حق إذا ما لك كدعه الحرمين وايو ترنك أكو بابا آية قبله الله بابيو لدوغنا ترنك أكو بابا آية والله بعض آدمه قصع ضبا هو يقول ما دشة قبل يصير دشة ويدور رير نقطية حاس وهو يصير نقطة وارد يصير نقطة هذا هو يدنا الآن لقوا حد قد بقول له حرمين ويلا طوره قبل يريد إذا لطينا الجور ذا حباش لقوا طوره هذا ماشي محاجرين